كولونيل أحمد ميري محمد وكمدها سراكيشي سرا ururkii SNM oo hadda ku nool dalka Ingiriiska ayaa si adag uga hadlay heshiiska isfahanka ay kala saxiixdeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo lagu sheegay in Soomaaliland Itoobiya ay ka kiraynayso saldhig iyo dekad ku yaala xeebta badeeda taasoo Soomaaliland ay sheegtay inay dhaafsatay aqoonsi caalami oo ay ka hesho dalka Itoobiya waxa kale Korneyl Axmed Mire oo telefishanka saab kula soo xidhiidhay khadka telefoonku uu ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee xilligan ka taagan Soomaaliland isagoo heshiiskana ku tilmaamay mid halis ku ah dadka Soomaalida isla markaasina aan la aqbali karin waana kan Korneyl Axmed Mire oo arrimahaasi iyo qodobo kala duwan ka hadlaya sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim mahadoo dhamma waxay u sugnaatay allaha weyn ee qaadirka ah ee mahadoo dhamma u sugnaatay waxaan kaloo halka kan aan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel kasta oo ay joogaan ayaan salaamayaa waxaan ummaddan aan u sheegayaa waxweeyaan qarnigan waxaynu soo marnay iyo maanta halkaynu ku dambayno waxweeyaan qarnigan waxaynu gallay dagaalaynu gallay waxaynu ka hor nimi dowladdii Maxamed Siyaad Barre waxaa loo bedelay qolo daarood iyo isaaq iyo waxbaa loo bedelay waxaynu la dagaalamaynayna wuxuu ahaa rajiim buu ahaa rajiimkii tiro badni kagamaynaan adkaan hubbadni kagamaynaan adkaan waxaynu dadka dheernahaynu kaga adkaanay ma jirto waxa weeyaan waa xaq iyo baadil isdilayaynu ahayn ilaahayna xaqii buu gargaaray gargaarka ilaahay baynu ku qabsannay dalka oo ku soo gallay oo magac ku yeelanay oo aynu ku xoreyna ummadda kumaynaan sii nagaan markiiba isqabsi baa la bilaabay madaxweynihiis meesha xukumayay baa loogu tegay gurigiisa oo lagula dagaalamay oo laga soo saaray isaaq baa la qaybiyey dagaal baa dadkii faraha laysugu geliyey dhiig baa la daadiyey aan xaq ahayn axdigii SNM baa la jebiyey oo kumay qorayn axdiga SNM inaynu goosannaa kumay qorayn ayaa la jebiyey waxa liya wixii la doonaa la sameeyey dagaaladii la aloosay farahaanu ka laabanay allaahumma dagaalkaa burco ay damcayna burco ku qabsadaan magaaladii xudunta Soomaaliland ahayd ee aan markii ugu horreysay xoreynay taa waanu ka diidnay waanu ka celinay war waxaasoo dhan farahayagaanu ka dhowreynay dhiig waxaasoo dhan dadka kan cadaawad iyo xumo in laysu geliyaanu ka fogaanaynay waxaasoo dhan waxaanu xeerinaynaa ummadda tan waa kuwii loo soo dagaalamayey ee maaha kuwii lala dagaalamayay way sii fiday maanta waa taasoo lascaanood baa lagula dagaalamay dadkii deegaanka ahaa waxa weeyaan maantana xaq iyo baadil baa dagaalamay xaqii baa ilaahay u hiliyey baadilkana waxa waday kuwan Somalilandka sheeganaya isla baxa iyo kibirka iyo waxsmoodka iyo aftaaga ayaa dadkaasi inoo geeyey wax hadal lagu dhamaysan kari lahaa laysu caqli celin lahaa laysbaryi lahaa wax laysweydiin lahaa wada tashi loo samayn lahaa midna waa la diiday wada tashi looma samayn dadkii lama ixtiraamin qaab siyaasadeed laguma gelin muruq baan sheegaynayaa baa layidhi muruqu maha afar qoryaad haysatid maha guusha ilaahay baa bixiya
waxa maanta taagan waxa weeyaan magacii SNM nimankaa maanta meesha xukumaya ayaa madaxa ku duubtay qaarna aanayba ahayn SNM ay iska soo galeen markii dambe waxa ka talayaana SNM maaha ayaa madaxa ku duubtay SNM waa la baabiiyey magaceediina waa la tirtiray taladeediina waa lagu tuntay waxaa loo soo galay haddana dalkii waa taasoo berbere waa la bixiyey lacag baa leedaa baa laga soo saaraa lacagtaasi miisaaniyadda weynay dalka kuma dhacdo rag bay jeebabkooda ku dhacdaa markii laydinka helay ee laydinku socodsiiyey ee lagu adkaystay in nin walba qaatee qaado ay noqoto ayaa hungurigii sii laba kacay maanta waxay taagan tahay dadkii la laayey ciidamadii dhammaayo meesha ku dhintay inta maxaabiista loo hayo jabkii ummadda gaadhay lagama hadlin walaa mucaarid baa ka hadlay walaa dowlad baa ka hadashay walaa golayaal sharci baa ka hadlay walaa hoggaamad dhaqameed baa ka hadlay cidina kama hadlin marka waxa weeyaan waa wax dadkii iyo lagu baabiiyey weeyaan dadkiina waxa weeyaan kuwii waxaa sameeyey ee wax la weydiin lahaa ayay daba galeen mid yidhaahda doorasho ii qabo oo muxuu ku qabtaa waddankiiba baabi'iye mid kale oo yidhaahda waan ku raacsannahay ha la dagaalamo waa caynkan war waxaasi waa caadifad weeyaan waa lacag jacayl waa hunguridoon waa qolo caabud waa diin yaraan waa dadnimo xumo waxaasoo dhan intaa markaa sii dayseen oo oggolaateen maantana waa tan taagan weyn wixii awoowayaasheen ka dagaalameen ee ay diideen ee qarni ilaa qarni ee markaanu carruurta ahayn weerka loo xidhay reserve area ugu dambaysay bixinteedii baa maantana nin intuu kolay ku qaatay yidhi waxaan ka soo iibiyey etoobiya waxaan ku beddeshay in sheer layga siiyo ethiopian airlineka war waxaasi miyayna qabataa nin sheer ku soo qaadanaya ethiopian airlineska oo baddii dalka iibinaya miyayna qabataa waa wixii hore u sii dayseen maantana waa sii dayseen waxaan leeyahay ummaddu ha toosto war waxaan faraha ha laga qabto war meel ka xun baa laydinka dooni doonaa war dadnimadiinni baa cunteen war diintiinni baa iibsateen war calankiinni baa mara ka dhigteen calankii laa ilaaha ila allahu muxammadan rasuulullahi ay ku qorayd ee tawxiidka ahaa ee damalka ahaa ee ummaddoo dhan mahadhsan lahayd baa mara ka dhigteen waxaa waddanka lagu xukumaya waa penal code wax hindi soo qoray baa maanta la sitaa lele hebel baa lagu xukumaya hebel baa lagu xukumaya oo weliba la kala khiyaamaynaya ilaa wax khiyaamo ku dhisan wax ilaahay soo dejiyey maahe oo weliba dadkiina lagu duudsiyaya oo masaakiintii lagu tumanaya hortiina war baadil baa ku jirtaan baadil baa taageeraysaan aakhiradiinni baa cunteen ummaddiina waa cunteen waxa weeyaan iskaga taga ummadda iskaga taga ayaan idin leeyahay ummadda dadkana waxaan leeyahay war geesinimo yeeshoo iska qabta war iska qabta magaciinu jiri maayo ilaa dagaalkii ilaa ascarood intii la galay ba 4 jeer nasabkiina la bedelay oo marba wax laydinku sheegay aadaba hurushinaysaan oo weli leedin waa kan waxbaanu ka helaynaa dekedaanu lacag ka helaynaa waxaasaan ku hadlaysaan yaa idin siinaya dalkiinnii baa iibiseen kuwii hore aad weydeen tii hore maxaa ka haysaan maxaa shaqaale ka hesheen kuwii ka xamaali jiray dekedaa laydinka eriyey maxaa faa'iideen haddii maanta iska qaban weydaan cid kaa xoog weyn wax looma dhiibto haddaa maanta iska qaban weydaan
maydinaan bixin bad yara waxa bixiseen dalkii oo dhan ee ogaada ubadkiina u tula aayihiina u tula taariikhdiina u tula ifka noloshiina u tula aakhiradiinana u tula waxaan kaloo aan kula dardaarmaya war wax walba caqliga xun ha ku eegina in hebel loo jeeday iyo in reer hebel loo jeeday iyo in ha ku eegina war waxa ku eegtaan caqliga san ee dalka ku eega dadnimada eega jiritaanka ubadka soo socda eega wixii aad soo marteen dib u eega waxaan aan leeyahay waxa maanta jira meesha joogow sidaas si leeg ugu dhiirada war hooy beentana dhegihiina ha u furina runta qaata isqiyaasa isqiimeeya waxaan leeyahay ummad yahay maanta waxay maraysaa halkii aanu 88kii la marayey ayay maraysaa maalintaana markii la wada gabaday annagaa u soo baxnay maantana annagaa u soo baxayna ka gaban mayno waxa weeyaan dhulkan la bixinayo ummadda soomaaliyeed baa leh ilaa raas caseer ilaa raas kamboni dadka ku nool baa leh wax la qariyo oo lala dhuunto way ka weyn tahay soomaalina waa mid soomaali waan ku celinayaa waa mid 2 maaha 3 maaha 5 maaha waa mid weyn waxaan aada u tahniyadeynayaa baarlamaanka soomaaliyeed iyo dowladdoodaba oo arrinkaa ka dhiidhiyey meel cadna iska taagay waxaanu ku boorinayaa baarlamaanada iyo golayaasha iyo waxgaradka somalilan inay taa mid ka adag soo saaraan oo waxaan ay ku tallaabsadaan oo wax ka qabtaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu